Diinta Islaamka waxay iga beddeshay nolol dhibaato iyo khatar ah. Waxaa sidaas dhahay waa Robbie, oo asal ahaan ka soo jeeda Australia kuna soo barbaaray dalka Mareykanka. Muddo dheer ayuu ku jiray nolosha gaangiska, dambiyada iyo daroogada. Wuxuu yidhi, nolosha meel aad u xun ayaan ka bilaabay. Anigoo yar ayaan la saaxiibay dad xun oo i baray daroogada iyo dambiyada ugu waaweyn. Wax dan ah kama aanan lahayn naftayda, noloshuba wax qiimo ah iima lahayn. Laakiin waxaan ahaa nin aaminsan diinta Kirishtaanka. Markaan arkay meel khatar ah inaan u socdo, waxaan ku laabtay kaniisadda si aan u raadiyo wax qalbiga ii dejiyo. Laakiin waan ku degi waayay oo waan ku kalsoonaan kari waayay. Shaki ayaa iga galay diintan inkastoo aan jeclaa. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa igu soo dhacay nin tagsiile ahaa oo muddo ka hor aan saaxiibo ahayn oo magaciisu yahay Maxamed. Waan la hadlay, waxaan ka dalbaday inuu masaajidka i geeyo haddii la ii oggol yahay. Wuxuu ii sheegay in la ii oggol yahay. Sidii baan ku tagay masaajidka. Markaan galay masaajidka, waxaan dareemay nolol deggan oo ii horseeday inaan baaro diinta Islaamka. May fududeed inaan qaato diinta Islaamka, waayo aniga iyo reerka aan ka soo jeedo waxay aad ugu xiriirsan yihiin kaniisadda. Markaan baaray oo aan xogaha bartay, kadib waan ku degay. Waan ku qancay inay tahay diinta dhabta ah ee dunidan. Waan islaamay. 3 bilood kadib, waxaan sidoo kale ku guulaystay hooyaday inaan ashhaadanka u qabto oo ay soo islaamto.